dood cilmiyeed ku saabsan isbedelada ka socda geeska Afrika iyo saameynta ay ku yeelan karaan aayaha ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. dood cilmiyeedka ayaa waxaa soo agaasimay xarunta Xayaat ee cilmi baarista iyo tababarada hogaamineed, waxaana lagu casuumay aqoon-yahano, siyaasiyiin, culamaa u diin, waxayna si aad ah u falanqeeyeen sida ummadda Soomaaliyeed ula falgeli karto isbedelka ka socda geeska Afrika. sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ahaa talooyin iyo su'aalo ay soo jeediyeen kasoo qaybgalayaasha. dood cilmiyeedkan ama aqoon-is-wadaarsigan ayaa looga gol lahaa sare u qaadidda wacyigelinta bulshada. mawduuca sida aad u jeedaan ciwaankiisu wuxuu yahay isbedelada ka socda geeska Afrika iyo saameynta ay ku yeelan karaan aayaha ummadda Soomaaliyeed. ciwaanka ama dooda nuxurkeedu meeshaas ayay ku salaysan tahay. waa dood cilmiyeed, waa dood aan ugu talagalnay wacyiga ummadda Soomaaliyeed inay kor u qaado, waa dood la yiraahdo aqoon isweydaarsi. doodaanu wax shuqul kuma lahan siyaasad, cidna lagu taageeri ma, cidna loogama soo horjeedo. aan hadda u jeedno isbedelada geeska Afrika runtii ka socda oo la yiraahdo hadda midkii la yiraahdo integrationka ama isdhaxgalka oo dhinac kasta leh. aad iyo aad ayaa dabayshaas runtii u socotaa, wayna ballaaran tahay geeska Afrika oo dhan meel kasta ka socota. marka dabayshan hadda socota waxaa ka dhashay walwal runtii aad u badan ayaa ka dhashay. walwalkaas oo ummadda Soomaaliyeed ay ka qabaan, gaar ahaan dadka elite-ka ah, dadka wax fahmaya, dadka aqoon-yahanka oo ay dareemayaan war waxa socda geeska Afrika ka socda ummadda Soomaaliyeed sidee u saameyn doonaan. maqaab negative ay u saameyn doonaan oo xun masaqaab fiican ay runtii u saameyn doonaan. annaga marka Xayaat ahaan maadaama aynu nahay xarun cilmi baaris, waxaan ugu talagalnay aqoon-yahanada Soomaaliyeed inaan isku keenno markii la isku yimaado laga doodo. maanta marka waxa fiisan inay noqoto madasha aqoon isweydaarsiga aqoon-yahanada Soomaaliyeed. waxaan u bixinaa inay noqoto madaal 100 qofood ku dhawaad ay fadhiyaan, waa dadka elite-ka ah, waa dadkii ummadda hogaaminaya, dhinac kasta ka hogaaminaya, in laga hadlo masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo geeska Afrika iyo sida uu noqonayo. marka aniga xayaan ku koray dabaasha aqaana mawjadaha markay mawjadu markay timaado hirka ku yimaado oo ku yimaado saddex bay mid noqonaysaa. koow inaad dan ka leedahay mawjada socota, inaad ba awood socoto awoodda marka inta ka xataa u socotay inay isdiira ciiso oo sii dhibaato ku sii saacido oo ka faa'iidin inay ku sii dhaweysaba. waa aspectiga labaad waxay mawjadu dhinac socotay dhinacaan ahayn adiga aan socotid oo muqsto u goysto marka ay ku dhaafto iyada. optionka labaad waay. optionka saddexaad waxa waaye ama optionka aan ahayn baka inaad istaagtid, marka istaagtid hirkuna ku yimaado oo korfaadinaya. saas ma saddexaas baa ku furan. isbedelkan socda Soomaaliya gacanaha kama laaban, ilaa ay gacanaha ka laaban karto. laakiin Ethiopia waxay haysataa oo cad inay israaciso isbedelkan socda ee China iyo Mareykan iyo Europe iyo Russia iyo Turkiga isku haystaan inay israaciso rabtaan si ay masaalixdeeda 22 sano soo dhaafnay. sidaas ay masaalixdeeda waxay ka dharanaysaa Ethiopia masaalixda wadamada waaweyn bay ka soo daraagelinaysaa. inaguna inuu ku dabalan jirnaa inagu marka ma israacin karnaa uma haysto inay israacin karnaa. waayo vision ka bariin meel u socono weyn oo jeedno oo leenahay 2050 halkaas aan u soconaa milihin maadaama aynan lahayn optionka inoo faro wuxuu leeyahay inaynu muqoosno si hor hirku inoo dhaafo. ma fahmaya inaynu muqoosno si hor macnaheedu maxay inaynu loo nimaano xeelad aynu ula tacaamulno sida gobolku u dhaqaayeen, laakiin aanan dabin kale ku gelin, dabin kale oo weyn aynan ku gelin. oo mesela regional integration la saxiixo waa long term project, waa 50 sano laga hadlaya, 40 sano laga hadlaya. marka regional economic integration geshid wax culus baa ka dhalanaya oo weyn oo aan ka wada baartaan garanayn. sabarta aan ku qiimeysan lahayn isu raacin lahayn ugu daalan lahayna ilmihii inay hadda ay inoo diyaarsan tahay. waxaan ku soo gabagabeynayaa markaan qodobkaas integration regional aan dhaafo, waxaan ku soo gabagabeynayaa wax intaba ka weyn oo ah maxaa in haysta inaka ilan qaybtan in hadda aan tabar u yeelan weyn in Ethiopia la tacaamulno ama gobolka la tacaamulno waxaa inoo diidaya. dhowr iyo 10 sano baan qiyaastii aan Soomaaliya mushkiladeeda aniga baarahay. Soomaaliya waa Soomaaliya ay ku saabsan tahay Soomaaliya Federal ee sida aan u fahmay mushkiladda Soomaalida. haddii aan rabno inaynu dowladnimo gobonnimo leh soo kordhiso, haddaynu rabno inaynu yeelano, waa lagama maarmaan muwaadinka Soomaaliyeed inuu karti u yeesho siyaasiga Soomaaliyeed in lagu daro inuu danta muwaadinka ka shaqeeyo. koow danta muwaadinku danta siyaasiga ma dabri karo oo siyaasiga ma dabranaan karto haddii sida aynu nahay oo ah way siyaasiga dantiisu danta muwaadinku waa danta guud Soomaaliya dan gaar maaha.
maadaama ay dan guud tahay inta aynu qaybsannahay ee laamo iyo furuuc aan nahay dan umadeed oo weyn ma keeni karno waayo siyaasigeena kuma xakamayn karno inuu dadka muwaadinka ka shaqeeyo Soomaalidu meel kasta joogaan dadka qaar waxay sheegayaan 30 milyan dhanna 30 milyan oo aqamaha haysata waxay ay keeni karaan wax weyn geeska Afrika sameyn karaan gaar ahaan hadduu integration uu dhaco waxaa dhici doona Soomaalida kala qoqoban inay is arkaan isbartaan oo shirar qabsadaan sida hadda Djibouti ka dhacay soo kale ka dhacay usbuuc dhaweeto in la soo keenay garanaysa shanta Soomaaliyeed bay ka soo qayb galeen maxaa yeelay dadka Soomaalida hadday helaan fursad ay kaga gudbaan xuduudaha oo xorriyad ay u soconayaan waa dad jeedi kara meesha ay joogaanba oo saameyn culus keeni karaay annagu inaanu jimaheennu ilaa ay dhinac u xirmaan integration iyo assimilation midna ma samayn karo haddaan samaynana annaga khasaareen waana wixii 1977 haddii taa la isku dayo marka in la xoojiyo waxaa ka imanaya isku dhac iyo dhibaato iyo shida ka imanaysa iyo dagaalo هذا سؤال بان أنا كو ماشي كدريا موجود داس ما كهري كرناوي optional ما تهي أو خيار نقول لنا هنا كهري كرنو ما كهري كرنو تاسا كدراني كما هري كرنو سي أنا أظهرنا مالي محاجرة نينكي كبه وينا يا حكومة رجال بيت هوشن أي قاعد سنة أنا قلنا هذا جنبه كباري وهذا تلاديني يعني وقوم جرت إثيوبيا لفظية تلاديني كان وقوم جرت ولا بدبادين أي مرة ولا بها لكن أنا لما ربين أنا بدباديه هو أنا لو ربي سداس أول وهذا أول كبير كا وحن أخذنا ما ندوتو نين تجريئة وجنرال ها ورجع هذا لقى أخذها أيوه وقال إيه أسرة ياماموتا ياماموتا أساساً سكرتري أوف أفريقيا أيوها ستيت ديبارتمنتية نين كان كينستيس وليه هي لغو أرومادا ياماموتا وحكينا نكاس أدو شغلين لكن ياماموتا اسكما من أبي أحمد مشروع هو مشروع وين إدي لقى فائدة سنتر مركز هتبع اللي قلتانيه هي اللي فائدة سنة Soomaalidu waxa la yiraahdaa mumiisaad beelada mumiisaadkeeda waxa kamid ah dad isku afo isku jisiraho isku fulaan oo waxa uu madaago isku luqo isku diin oo isku madhabo kan oo kan away laakiin taas waxay noogu shafeeci weyday intaas oo wanaag ah oo mada badan aysan la wadaagin noogama shafeecin aan islayno noogama shafeecin dawladeena iska burburino noogama shafeecin midnimadeena inaan bitibaalka ku darno oo wax intii diin lahayd intaan diin lahayn ba ay la yaaban yihiin ayaa naga soo baxay oo waatan hadda jeesaskii aanu kala degi jiray markii xoolaha raaci jiray hadda loo kala degay oo systemkii dawladnimadii magacyadii cusbaa inta loo geliyay shaar loo geliyay waatan jeesas loo kala fariistay wayna sii socotaa jeesaskaas waftoo jeesas bay sii kala noqonayaan marka arrintaas iyada ah inay xal nooga noqoto ma dhici kartaayo dadku markay isku mashquulaan cadow baa loo sameeyaa haddii la khatar baa meeshan ka soo socoto dad baa soo guuxayo waa la dinsiiraya gabiginaba ma dhici kartaa sabab inay noogu noqoto inay Soomaalidu israadsadaan oo warban midnimadii iyo dadnimadii iyo danaheeni aan dib u baarno inay su'aashaas keento oo inagu dhaliso dib ugu soo nooleys maskaxda Soomaalida ma dhici kartaa oo ijaabi ma noqon kartaa mawjadan waa bilow wasii socon doontaa Ethiopia lafteedu isku raxsan tahay ninkaan maqlayna abi xadan maqlaaya ma la wada askarigiis baa wada maqoomiyad kaliya wadata oo ma aragtay magaca la isheeg oromada bas waa la wada qoomiyada kale maxay qabaan marka arin laftiisu wali xaggaas aan ka saldhigan inuu yahan ka baqaya aniga oo wali socda marka inuu saldhigto lafteeda in lagu saacido oo waxaanu aysan ku socdaan oo ka baninkaan ugu yaraan anaga xoogaa iftiiba noo ifiyay inanka wixii ay socdaan in lafteena aan ku shaqeyno Soomaali ahaan aad baa runtii ila fiican tahay lana ogaado waxaana waa siyaasaduna saaxiibtinimo daa'ima ma laha maslaxad daa'ima ayay leedahay marka ragga hadda wada socono isla boodayna bariina isla boodi doono lafteeda lama hubo marka markasta anagoo danteena ilaashanayna inaan ka faa'iideysano waxa hadda jira aad runtii maaragtay u yihiin munaasab
integration kaane wuxuu leeyahay shuruudo markii ummad isdhexgelayso EU isdhexgeli la ingiriisku waa diidayan adiga awoodda aad leedahay maxay dowlad kuma dhisna siyaasi kuma dhisna ninka kuu jooga adkii oo cunaya hadduusan cunayn wuu ciidayna maxaa adiga aad ka tegi kartaa intee noqon kartaa aad la mid noqon kartaa aad garab istaagi kartaa qof noocaas ah. Finally, economic integration marka laga hadlayo opportunity-gan waa opportunity fiican waa inaan qalabkeena u qaadanaa waa inaan isu nimaano aqoon-yahankeena waa inaan arintaasan ka faa'iidaysanaa. waxaan ka codsanaynaa sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fikirkan idin siiyey uu idinkugu hibeeyey iyo aqoonta aad leedihiin inaad uga shaqaysaan tartiib albayt الصومالي من جديد يعني ترتيب داخلي aan u baahannahay gudaha hoostaan ka burbursannahay